munaasabadani ballaaran oo ahayd mid ardayda sanadkani ka baxaysa dugsiga sare ee Candlelight Burco ay ku sii sagotinayeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ayaa ahayd munaasabad si heer loo soo hagaasimay isla mar ahaantaana kulmisay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana munaasabadani goob joog ahaa maamulka macallimiinta iyo sidoo kale ardayda sanadkani ka baxaysa dugsiga Candlelight haddaba ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda soo qaban qaabsay xafladani waxayna sharaxaad ka bixiyeen ujeedada munaasabadani daaran tahay waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan xafladan aan maanta u qaban qaabinay 4 sano maanta macallimiintu wax noo soo barayeen cilmigeena soo barayeen intifaacana soo barayeen iyo maanta aanu sii sagootino oo aanu duco ku kala tagno waayo maxay tahay 4 sano dhammaan cilmigooda shaqaynay maskaxdooda dhuuqaynay maankooda dhuuqaynay marka waxaan doonaynaa inaad ducoona raacisaan maanta marka aad iyo aad baan u salaamayna dhammaan macallimiinta waqtigooda noo horay amuuraha dugsiga Candlelight iskuul weeye kureeyaho kan waxa iskuul ahaaday xaqiiqdiisa koo ka noqday maamulka allow ka tibay noqoykii sida madar loo rabay daawo ardada u koobayna xaj baad moodaa kureeshe muslim noqdina kuwii aad ma ayido dugsigaas baan ka waramay miyaynu ka kaaftoomi karaa halay aad iyo aad baad mahadsantihiin macallimiinteedu intaas oo sano nagu soo tacabtay cilmigeena bareen waxaan leeyahay Allah idinka shaafiyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan ardayda foore waxaan leeyahay iyaguna wax qabadka ay qabteen wad ku mahadsantihiin waxaan kaloo leeyahay iminka waan sii dhameynay dugsiga waan ka baxnay laakiin si macallimiinteena kamaynu tagin kamaynu bixin si maxaan ku dhahaayay meel kasta joogan waa macallimiinteeni waxaan ku sidaas aynu ku daryeelo dhanka kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay macallimiinta dugsiga Candlelight School oo mahadnaq iyo ducaba u jeediyay ardaydaasi waxaana ay yiraahdeen waxaan filayaa ardaydaasi waajibkoodii way garteen say nooga muuqato xafladan waxaan nagu marti qaadeen afur waxaan nagu marti qaadeen casho saadiradeed waxaan oran karnaa maadaama ay waajibkii macallinku la ay garteen tii waalidka iyo tii dalka iyo tii diintana insha Allah inay saasi leeg u garanayaan waxaan markaa oran karnaa waxa ka muuqata waxbarasho aan oran karno waa waxbarasho lagu aflaxay maxaad u jeedinayaa ardayda xafladan soo qaban qaabisay ee sharaftay macallimiintoodii iyo maamulkoodii ay garatay waajibkii ka saarnaa waan idin ducaynaynaa inuu ilaahay imtixaanka shahaadiga idinku soo foolgalaha idinku soo dhow si qurux badan iyo natiijo wanaagsan idinka siiyo si wanaagsan ah u dhaaftaan idinkoo isku dhan waa xaq nagu leedin waxa weeye inaanu diinsi ducayno mar haddii anagu nahay macallimiintiinii waxaanu jecelahay in waxa weeye aad imtixaanka kaalmo sare aad keentaan oo ay garteen waajibkoodii iyo roolkooda oo ay garteen inay yihiin dad iyagu mas'uuliyiin waa wadadii way hayaan ardayda kan la mari jirtay ugu dambeyntii gudoomiyaha hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer ahna maamulaha iskuulkaasi Xasan Cabdullaahi Daacad ayaa ardaydaasi u jeediyay khudbad qiimo badan wuxuuna kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda waxbarasho waxaana uu yiri anigu muddo badan ayaan iskuulkan inta badan aan joogay waa markii koowaad iyo markii labaad inay tahay garan maayo oo xaflad caynkan oo kala ah naloo qabto taasina waa lafteedana waa taariikh ardaydu marka ay dhamaysato iskuulka waa la kala tagi jiray marka adeerayaal waxa weeye sabir yar aynu yeelano oo aynu samirno dhulkana aynu aamino ciidda aynu aamino alxamdulillaah rabbil caalamiin jaaniskana aynu ka faa'iidaysano waxbarashada anu markaas aynu kula dardaarmaya waxbarashada halowga Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable Burco